dalxiisayaasha wadkooga ay noqotay inay aadaan markabkii Titanic si ay u soo daawadaan burburkiisa isagoo quusay sanadkii 1912. 5 nin oo maalqabeena ah oo bilyaneer ah kuwaas oo ka soo kala jeeda dalalka wadanka Pakistan, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku quusay si ay u soo arkaan burburkii markabka Titanic kaasi oo quusay muddo 1 qarni in ka badan. haddaba markii ay quuseen waxay ahayd 18 bishan iyagoo halkaasi u tagay dalxiis. waxa qof walba laga qaaday dhaqaale dhan $250,000 iyagoo shubay. haddaba markii ay quuseen naaqudayaashii iyo sidoo kale bahasha yar ee doonta ah ee u samaysan qaabka macmalka ah waxaa dhaqaajin karaa cid kasta iyadoo aaladda lagu hagayayna ay tahay qalabka lagu ciyaaro kombiyuutarka ee geemka, taas oo u baahnayn khubaro ay yiraahdeen shirkadda lahayd aaladan oo iyadu mar hore ama dhowr jeer oo hore dad saasoo kale u qaaday. balse markii ay 18 bishan 8 aroornimo ay quuseen waxay xiriirka lumisay 9:45 ilbiriqsi. waa markii ay sii maqnayd muddo 1 saac iyo badh. haddaba markii ay xiriirka lumisay markabkii dusha sare taagnaa ee sida dhow ula xiriirayay markii uu waayay waxa uu raadinayay ama baadi goobayay bal inuu xiriirkoodu dib u soo noqdo ilaa 5 galabnimo. laakiin markii arrinkaas ay ku guuldareysteen ay la wadaageen adduunka. markii adduunka la wadaageen waxaa la baadi goobay amba si degdeg ah loo hawlgeliyay bal sidii loo raadin lahaa raq iyo ruux bal in meel uun loogu hagaago. waxaana laga raadinayaa ilaa 10,000 oo mayl oo isku wareega kuwaas oo ay baadi goobayaan maraakiib, diyaarado iyo sidoo kale baabado iyo sidoo kale tiknoolajiyad ama magnet lagu tuurayo badda bal si looga raadiyo maadaama aysan bilaadmigu awood u lahayn inay gunta hoose ee badda u dhaadhacaan. run ahaantii arrinku waa arrin aad iyo aad u naxdin badan oo fajacaya ama kaag leh. waxaana muuqata in ay ahaayeen 2 ka mid ah dadka dalxiisayaasha ah wiil iyo aabihii, iyadoo uusan aabbuhu muujin inay wax walba dhici karaan kamuu fikirin inay labadoodu kala hadhaan, balse wax walba waa qadarta. ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay uga tacsiyeynayaan dadkii iyo eheladii ay ka soo jeedeen bilyaneeradan halkaasi ku lumay ama markaasi ku dhintay. waxa la aaminsan yahay in oksijiintu ka dhamaanayso taas oo suurto gelinaysa geeridooda maadaama ay maskaxda bini'aadamku ku shaqeyso oksijiin, taas oo markay ka dhamaato sababaysa geerida. oksijiinta doonta yar u saarnayd ayaa iyada la rumaysan yahay inay mar hore ka dhamaatay maadaama gunta hoose ee badda loo dhaadhacay oo aysan jirin cid bini'aadmi oo halkaasi ku dhaadhici karta. ilaa haatanna raq iyo ruux meel ay jaan iyo cirib dhigeen lama hayo. ilaa baadigoob ayaa ku jira laakiin waxaa si dhab ah loo rumaysan yahay inay geeriyoodeen.